Soo Koobid Curiosity oo Marska helay sulfur nadiif ah. Waxyaabaha muhiimka ah ee la helay. Roverka Curiosity ayaa si shil ah u burburiyey dhagax ku yaal JPL Tunnel bishii May 2024. Gudaha dhagaxa waxaa ka soo baxay kristallo jaalle ah oo sulfur nadiif ah, elemental sulfur. Tani waa markii ugu horreysay ee sulfur nadiif ah laga helo Mars. Hore waxaa loo ogaa oo keliya sulfates, isku dhafka sulfur iyo macdanta kale. Goobta ay ku taalo dhagaxa la helay waxaa ku badan dhagxaan kale oo u muuqda kuwa la mid ah, taasoo muujinaysa in sulfur nadiif ah laga yaabo inuu ku badan yahay halkaas. Macnaha iyo muhiimadda. Sulfates waxay ka dhashaan marka sulfur ku jiro isku dhafyo uu la falgalo biyo, kadibna biyuhu engegaan. Sulfur nadiif ah wuxuu ka samaysmaa xaalado aad u gaar ah oo aan la filayn in ay ka jiraan Mars. Helitaanka sulfur nadiif ah wuxuu muujinayaa in geolojiga Mars uu leeyahay sirar aan weli la fahmin. Sulfur waa curiye muhiim u ah nolosha, waxaana loo isticmaalaa samaynta amino acids muhiim u ah borotiinka noolaha. Hadallada NASA. Ashwin Fasafada, saynisyahanka mashruuca Curiosity, wuxuu yidhi, helitaanka dhagxaan ka samaysan sulfur nadiif ah waa sida helitaanka oo sii saxaraha dhexdiisa. Waa wax aan la filayn, waana inaan sharaxno sababta. Tallaabooyinka xiga. Saynisyahanadu waxay qorsheynayaan in ay sameeyaan modeling geologiga Mars si loo fahmo sida sulfur nadiif ah uga soo baxay halkaas. Curiosity iyo Perseverance waxay sii wadaan sahaminta iyagoo ururinaya hog cusub oo ku saabsan taariikhda biyaha iyo macdanta Mars. Gunaanad. Helitaanka sulfur nadiif ah oo Mars ah waa mid lama filaan ah oo ka dhigay saynisyahanada NASA in ay dib u eegaan fahamka geolojiga iyo taariikhda biyaha ee meeraha. Inkastoo aysan caddayn nolol, haddana waxay muujinaysaa in Mars uu leeyahay curiyo muhiim u ah nolosha iyo sirar weli qarsoon.